markale soo dhawaada asxaabta kuna soo dhawaada kooraskeeni taxanaha cookbook iyo cashirkeeni 18aad waxa idin soo socodsiinaya casharadan iyo kuwa kale oo fara badan anigoo macallin Ismaan Gurey. hadaba waxa aynu muuqaalkan ku eegi doonaa create invoice, qaabka macaamiisha wax loo deymiyo ama qaabka loo diiwaan geliyo adeyn kasta oo ka maqan oo kaaga maqan macaamiisha adiga marka kugu xiran. sida caadiga adiga marka tusaale ahaan vendorka ama supplierka ama wax kasta oo adigu adeyn ahaan u soo qaadatid waxa la yiraahdaa accounts payable. wax kasta oo inaga maqan macaamiisha cid inaga inagu xiran waxa la yiraahdaa accounts receivable. hadaba waxaan eegi doonaa qaabka loo diiwaan geliyo adeyn ama qaabka qofka customerka wax loo iibiyo. inaga cashirkan ku horeeyay ka soo hadalnay qaabka qofka customerka wax looga iibiyo ama qaabka wax loo iibiyo. hadaba waxaan tagi doonaa create invoice inagoo joogna home page-keena ama waxa tagaysaa menu-ga loo yaqaano customer menu. kadib waxaad leedahay create invoice ama control I. halkan marka aan ku dhufano daaqada ayaan soo bixi doonta. waxaan gelin doonaa customerka magaciisa ayaan halkan gelin doonaa oo kala tusaale kale waxaan leenahay Amuna Jamac. halkan waxaad gelin doontaa waxa loo yaqaano invoice haddii aad book isticmaashid. halkan numberka gelin doontaa. halkan waxaad gelin doontaa waxa loo yaqaano time key. halkan haddii aad eegtid waa invoice. halkan waxaan gelin doonaa quantity-ga macnaheedu items-ka waxyaabahan aan qofka customer-ka siinayno. halkan ayaa ku qori doonaa quantity-ga markaa uu inaga qaatay tira ahaan waxaan leenahay 5 baan leenahay. halkan waxa kugu jira items kale ka soo baxayaan. tusaale kale waxaan siinaynaa 5 kiish oo daqiiqa ayaan siinaynaa ala kiish oo $13 way waxaan kala siin doonaa waxa loo yaqaano iPhone oo kale tusaale kale. halkan waxaan gelin doonaa waan leenahay cafwan 2 xabo oo iPhone. halkan ayaan gelin doonaa iPhone-ka midka waa maxay waa konton $510 weeye price-kiisu ama sales price-ka marka aan ka iibinayno. marka waxaan siinay 5 kiish oo daqiiqa ala kiish iyo $13 waa $65. waxaan kaloo siinay 2 telephone oo iPhone Max 11 tusaale midkii uu yahay 510 waa 1020. totalka ama wadarta guud ee qofkaas inaga deentay waxay dhantahay lacag dhan $185 ayay dhantahay sida caadiga. kadib waxaan leenahay save and close. waayay hadaba waxa soo kordhaya account leedo accounts receivable oo ay ku jirto $185. sidoo kale waxa dhacaya inventory-geeni waxa ku dhacaya waxa loo yaqaano decrease hoos u dhac oo tusaale ahaan alaabtu way yaraanaysaa sababtoo alaabtii waynu iibinay. marka waxaan tagnaa report, waxaan tagnaa company and financial balance sheet-kana haddii aan eegno total waxaa khasnada inoogu jira ama akoonada saf gareysan. khasnada waxaa inoogu jira $180. Daabshiil waxaa inoogu jira $100. khasnadan halkan Amal Bankina waxaa inoogu jira -560 baan ku jirnaa oo tusaale ahaan lacag ayaynu ka saarnay aan ku jirin oo dheeriya. total waxa loo yaqaano akoonada inoo saf gareysan waa $620. account receivable waa $185 lacagaha naga muuqda ka macaamiisha. inventory-geena waa $145. and deposit fund waxaa inoogu jira lacag dhan $300 oo aynu iibinay oo cash ku iibinay. total asset-ka aynu haysanay waa 3000 iyo waxa loo yaqaano $50 weeye. deyn waxaa lanagu leeyahay $340. saddexdan hantiilana waxay leeyihiin lacag dhan $2071. total liability plus equity waxay la mid tahay 3050 sidan ayay soo gareeyeen. sidoo kale waxaa muhiim ah mar walba inaad la socotid profit and loss ka company and financial. kadib waxaan leenahay profit and loss. halkan waxaad kala soconaysaa sales-ki aad samaysay. tusaale inagu waxaan sameynay sales dhan $1385. cost of goods sold badeecadan ama waxay nagu joogeen lacag dhan $135. faa'iidada ama gross profit-ka aan ka helnaa waa $210. marka cashirkani waa cashir kooban aynu ku eegi doono ama aynu ku eegnay qaabka ugu fudud ee loo bixiyo deyn ama macaamiisha wax loo deymiyo. simple home page-kaaga ama customer menu tagaysaa kadib waxaad leedahay create invoice. waxaa horeyn doona quantity-ga ama qofka waxa aad ka iibinaysid intee item baad ka iibinaysaa. kadibna waxa wixii doonaa item code-ka ama item name-ka ayaa halkan gelaya. kadibna sidaas ayaad ku deyminaysaa. insha Allah cashirka wixii waxaan ku eegi doonaa qaabka receiving loo sameeyo ama qaabka qofka customer-ka lacagtii marka uu bixiyo looga qaado ama loo diiwaan geliyo. sidoo kale haddaad tagtid customer menu
halkan customer centerka waxaa kugu jira macaamiishii oo aynu insha Allah arki doono qaabka loo ogaado lacagaha deynta lagu leeyahay macaamiisha ama qaabka laga eego. Marka Money Jam iminka waxaa ku dilacan $1,085 oo ah account receivable. Intaynu casharkan casri ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.